حسين عثمان بوله وويل Soomaaliyeed asagoo nabad raadis soo gaaray wadanka Uganda waa bal laba xaaslaa wuxuu dhalay 5 caruur ah todobadii bishii 12 2017 waxa si lama filaan u weeraray koox burcad oo doonayay inay ka qaataan telefoonka gacanta waxa dhaawacaad culus ka soo gaaray madaxa iyadoo madaxiisa lagu sameeyay qalin aad u culus Xuseen wuxuu hadda ku jira kooma joogta kadib 3 bilood oo lagu hayay isbitaalka Case Hospital waxa baxaanadiisa ku baxday qarash kor u dhaafaya $50,000 waxa qarashka iska kaashaday dadka Soomaaliyeed tabar iyo taag waxay hayeen halkaas ay dhaafi weyday xaaladda wiilkan Soomaaliyeed oo wali sideedaya ayadoo aysan jirin horumar laga sameeyay qalimadii lagu sameeyay qaybta hore ee madaxiisana waa mid Faranjiyeer ku jirta waxaana ku aadan xoob yar sidoo kale Xuseen ma uu neefsan karo mana qaadan karo cuntada waxaana cuntada iyo neeftaba ka qaata tuba lagu xiray doontiisa muddadii uu ku jiray isbitaalka waxa maalintii ku baxay qarash kor u dhaafay $600 qoyska oo dan yar ma awoodaan daaweynta wiilkooda dhaqtiirta dalka Uganda iyo ehelka Xuseenba waxay ku kalsoon yihiin in la badbaadin karo nolosha Xuseen hadii loo helo fayadhowr iyo dhaqaale intan ka wanaagsan iyadoo ehelada Xuseen ay dadka Soomaaliyeed ka codsadeen in lagu caawiyo sidii caafimaad dalka dibadiisa lagu raadin lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanaynaa wixii kaalmo ay noo geysan karaan inay noo geystaan hadda inta aan ognahay oo qarashka aan ku bixinay reerku wuxuu baxshay ilaa $46,000 Soomaalida Kampala joogta khayr badan la siiyo intooda badanna waxay nagu gargaareen lacag $5,000 gaaraysa 2 bilood wuxuu ku jiray isbitaal maalintii $600 ay ku socoto kadib waadkaysan weynay waxaan soo gadnay mashiinadii neefta ka qaaday sidaad aragteen ama sawirka aragtaan iyo sariirtii iyo inaan gooni u kureysano xataa gabdhihii naasiska ahaa maalintii waxa ku socota $200 ilaa $250 Kampala dhibaatooyin fara badan ay ka jiro wiilkaas kaligiis ma aha dad badan oo kalentooda dhibaato noocaas ay ku dhacday baa jiro waxa ka mid wariye ah oo hadda laftirkeeda aan jeclayn in aan uu nagala soo qayb galo hadda aan la joogin dad kalentooda fara badan marka dhibaatooyinka Kampala ay ka jiraan Allah naga saamaxo يعني dadkuna sidooda maaragtay ka foojignaadaan dhibaatooyinka noocaas oo kalentooda inta ayan imaanin haday imaadaan ka bacdi dib aad u fara badan waay marka Ilaahay ha naga saamaxo Allahna maaragtay asagana noo caafiyo inta dambana Allah badbaadiyo waxaan idinka codsanaynaa cid kasta oo wax ka geysan karta oo Soomaaliya ama Islaam ah in ay xaaladaasi khadiirka ah oo intii hore waxay laga qaban kara laga qabtay wixii dambe cidii wax ka qaban kartaa in ay naga caawiso anagoo ay Faadimo Cismaan Ibraahin anagoo maamada Xuseen Cismaan Buule ah wiilkayga oo ku dhacday dhibaato tuugo oo soo weerartay maskaxda laga jijibiyay oo laftiisa hadda isbitaal taalo oo iska xanuunsan xaaladiisa aan la saadaale karan adaga alxamdulillah laba xaasas leeyahay 5 caruuras leeyahay adaga xaaladii waa dib ay soo socotay anagii markaan muslimiintii oo Kampala joogan tabar ayaa qabatay islaamka waxaan ka codsanaynaa Ilaahay haduu idmo dalka noolaga qaado ama wixii kaalme ay nagu taakuleeyaan marka wixii la helo kala islaamka oo dhamaan ayaan ka codsanaynaa anaga wiilkayga xanuun waa igu hayaa oo ma ka hurdo oo mana ka harsado 3 bilood ayaa xaaladiisa aan la saadaale karan Soomaali ayaan ugu imaaday xaaladiisa Ilaahayna ha caafiyo insha Allah intii islaam ahna maqlaysa ummadda islaamka ha loo soo wada ducooyo waxay nagu taaga karaan ha nagu taabaana insha Allah Ilaahayna ha caafiyo islaamkana Allah barakeeyo insha dawladda Soomaaliya anagoo jinsiyadeeda Soomaali ah marka ayadana waxay nagu taakulay karaan ha nagu taakuleeyaan qarash ahaada ama wax qabad ha ahaadana ayadana dalhan anday noo qaada kar dibadda dalka kulli waxay noo qaba kartaa ha noo qabato dadka islaamka dhamaan marka saasan u dir lahaa Xuseen Cusmaan Buule wuxuu hadda marti u yahay qof kasta oo Soomaaliyeed gacantiina ay ku xiran tahay rajada iyo badbaadinta Xuseen hadii Allah u qoray qolayska Xuseen wuxuu saameyn ku yeeshay qof kasta oo Soomaaliya ku nool wadanka Uganda Soomaalida ayaa la kulma weeraro uga imaanaya kooxo burcada ayagoo dil u geysta sidoo kale horaantii bishan ay ahayd markii koox wariyaal ay sidoo kale u weerareen koox burcada ayagoo soo gaarsiiyay dhaawacyo Abdirizak hiiraan Kalsan TV Uganda